الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعشر كاني saddexaad oo ka mid ahaa kitaabkeenii qur-aanka ahaa ee tafsiirka ahaa. Caawa waxaa bilow inoo insha allahu suuratu lbaqara. bisinka hore baan uga soo hadalnay oo culimadu islaamka waa kuwii ku kala tegay suuradda ayuu ka mid yahay. barhkoodna ay yidhaahdeen suuradda ka mid ma ahe waxa loo keenay meeshani waxay ahayd faasilo. alif laam miim allahu aclam. alifka laam iyo miima ilaahay baa og. carabtii waagii hore ku hadli jirtay luqada carabiga ee aada u yaqaanay yaa qur-aankii oo luqal carabiya kusoo degay baa u yimid oo hadalkii ay ku hadli jireen ay ahaa ijlis, macnaha qum, waxaa weeya israc, tacaal, haati. hadalkii noocaa ahaa ee iyagu ay lahaayeen ee iyagu ay isticmaali jireen oo mucjize a baa yimid. maba garan karaanba hadda alif laam miim. alif iyo laam iyo miim carabigii xuruuftii lagu hadlahayay buu ka mid ahaa haddana waa kale macnihiisa keena. qur-aanka waxa weeyaan ilaahay muxuu leeyahay isaga oo kale la imaada haddii aad run sheegaysaan idinku. qur-aankii oo kale marka way la imaan waayeen, lama iman karaan. marka alif laam miimtan wuxuu ka mid yahay ilaahay baa garanaya macnihiisa, ilaahay baa garanayo, laakiin waa mucjizo min allahi, ilahay xaggiisa ka ahaatay jala wacala. ilaahay baa og muraadka looga jeedo arrinkaa isaga ah. dalika kanowkaa isaga ah. dalika hada alkitaabu, haadaa kaasi alkitaabu weeye. kitaabkaa isagaad aqrinaysaan kan isaga ah ee macnaha lagugu soo dejinaya sayidka maxamed oo waa kitaab. oo maxaa loo yidhi waa kitaab? maxaa loo yidhi? kuwa horeba soo kutub ma ahayn. kuwa hore kutub bay ahaayeen, laakiin kutub kaamil ah oo dhammaystiran ma aha. kutub kaamil ah oo dhammaystiran sidan kitaabkan qur-aanka ah uu u dhammaystiran yahay ma uu aha. kutub dhammaystiran iyaguna ma ay aha. oo waa maxay? hadda bilmatalanba waa adigoo yidhi ninkaa hebel ah. raggan oo dhan waa isku rag, laakiin ninkan waa nin kaamil ah. waa maxay? shujaacadii iyo sakhinimadii iyo waxa weeyaan cadiyadii iyo waxa weeyaan aragtidii, qofka aragtidiisa si uu qof walba u garanayo. wax walbaba qofka kaamil buu ka yahay, wuu dhammaystiran yahay. kitaabkan qur-aanka ana waxaa looga jeedaa ee keena waa kitaab dhammaystiran. dalika kaasi alkitaabu weeyo. macnahaas isaga asaas waad mari kartaa. waxaa kaloo dhihi kartaa dalika kanowkaa isaga haadaa kaasi alkitaabu ee kitaabka alladii kaasoo yaqra'uhu muxamedun uu aqrinayo laa rayba bimacnaa laa shaka wax shakiya fiihi isaga fiigiisa ma ahaanin. oo soo kanba gaalada ay shakisan tahay meeqa qof baa shakisan oo kitaabkii qur-aanka ahaa diidan oo dhammaantood uu ku wada taagan yahay, shaki uu ku taagan yahay. maxaa loo leeyahay laa rayba laa shaka wax shakiya isaga fiigiisa ma ahaanin? waxa weeye gaaladan aad arkayso way og yihiin kitaabkeennan qur-aanka ah inuusan wax shakiya uusan ku jirin oo dhammaystiran yahay. way og yihiin, way og yihiin. laakiin bacda xaadiqi lfahmi, intii ay dhug fara badan iyo waxa weeyaan aragti fara badan ay u yeesheen oo ay ogaadeen ayay jahdiyeen oo inkireen kitaabkii qur-aanka ah. wax shakiya fiigiisa maa, way og yihiin inuu xaq yahay. ilaahayna uu kusoo dejiyey rasuulullahi maxamed bacda an ra-ow xaqa, xaqi intay arkeen kadib oo xaqii ay ogaadeen ayay iska indhatireen oo xaqii ay dhinac ka mareen. dalika kaasi alqur'aanu ee qur-aanka huwa kaasi alkitaabu wey alcadiimu oo wey. kaa isaga lagu sheegaya waa kitaab qur-aan aho waxaa weeyaan kitaabka aad buu u weyn yahay. alladii kaasoo laa shaka wax shaki ah fiihi isaga fiigiisa uusan ahaan, ay annahu min cindi illahi inuu ilaahay isaga xaggiisa ka ahaaday. wax shakiya kuma jiro. oo falaa yasixu ma asaxahayo an yartaaba inuu qof macnaha an yartaaba inuu shakiyo fiihi kitaabka fiigiisa axadun inuu ku shakiyo. kitaabka qur-aanka ah fiigiisa inuu axad ku shakiyo ma asaxayso. waa liwuduuxihi kitaabka caddaantiisa oo xaqa uu ku cadiyay. yantaficu bihi kitaabka isaga waxaa ku intifaaco almuttaquuna kuwa ilaahay ka boqo ee muttaqiinta ayaa ku intifaaco. waxaa weeyaan cilmiga, cilmi naafica ayay kaga intifaacaan bilcilmi naafic weeyaan iyo walcamal saalix. wahuwa aladiina yakhaafuuna allaha kuwa waxaa weeye kuwa ilaahay ka baqahayo oo wayabtaquuna dalbahaya waxaa weeyaan axkaamahu kitaabka qur-aanka axkaamtiisa ayay dalbahayaan oo ay raacahayaan.
كتاب القرآن ذلك كانوا وحويا كائسا الكتاب كتابك ذلك كاس الكتاب كتاب ويه لا شك وحشك فيه إسجا فيه سماهن وحتى لو كرتا ذلك كانوا كائسا الكتاب كتابك الذي كاسو يقرأه محمد وأغرنيه لا شك وحشك رسول الله محمد وأغريه صلى الله عليه وآله وسلم لا شك وحشك فيه إسجا فيه سماهن سورة البقرة اللي هذا ومدني مدينة أي كسر تكتي سورتنا وحوي ولا بقول هي وحوي سديتا يتضبع أيضا وعاكلوا اللي قد ما هي ولا بقول هي سديتا هي وحوي اللي آيات وهي سورة دني واسد أيضا إنه إلهي أكتي سكا هذا وحشك وكجر مجرى هدى هاد مدهنورنا يوي كتاب كائسا للمتقين كوا متقين أيها نونيا متقين صابرين وحوي يعني التقوى إلهي قصة بروح هو يجا أيها نونيا كتاب القرآن كأوه وهنون ويا كتاب الذين كوي ويكوا يجا متقين يؤمنون الرمين هيو بالغيب غيب كرمين هيو أو يقيمون الصلاة صلاة دين أوجا هيو ومما كي رزقناهم أنكو رزقنا ينفقون نفقين هيو أو معد حقي وحوي غيب إلهي سبحانه وتعالى يوم أرك sheekadiisa oo kitaabka quraanka uga sheekeeyay ay rumaynayaan qayb jannadii iyo naartii iyo wax walba haddana salaadii bay oogahayaan haddana waxay kala bixinayaan wixii ilaahay uu siiyay ayaa xaq lagu lahaa ee waajibka ahaa ama sadaqa ahaato sadaqadii zakadii ha ahaato ama ha ahaado khumuskii wixii lagu lahaa ee waxa weeye ilaahay uu ku waajib yeelay xoolahooda iyaga ah ayay bixinayaan kuwa iyaga ah mutaqiinta lagu sheegay alladina kuwa la soo sifeeyay alladina kuwi يؤمنون الرمين هي بالغيب غيب كرمين هي أو يقيمون الصلاة صلاة دين أوجا هي ومما كي رزقناهم أنكو رزقنا ينفقون نفقين هي ومما يمل الذي كي رزقناهم أنكو رزقنا ينفقون ويبحن هي وهم قوى إيجا الذين كوي يصدقون الرمين هي بالغيب غيب كرمين هي الذي كاسو لا تدركه أيسن هليلين حواسهم يجا حواسته أيسن هليلين ولا عقولهم عقل وذن أيسن هليلين عقل وذن ما هليله هي حواسته وذن درين كان ما هليله هي وياه لأنه لا يعرف إلا بوحي الله لقما أقون صدر متكا إساقا إلا وحي إلهي مويانا وحكلا لقما أقون صدر إلى رسوله سؤو وحيود ومحي هدي واسد إيمانك ملائكة الله رمي جنة الله رمي نارتي الله رمي إيه وغير ذلك أو مما أخبر الله به أو مما أخبر به رسوله والإيمان إيمانك اللي قول شيء هي كلمة ذا جامعة كل من يسوى حويان للإقرار بالله جل وعلا وملائكته كل من يسوى إيه وكتبه كل من يسوى ورسله بي كل من يسوى إيه واليوم الآخر والقدر بي كل من يسوى خيره إيه وشره والتصديق الإقرار بي كل من يسوى بالقول إيه والعمل بالقلب إيه واللسان والجوارح وهم إيه مع تصديقهم بالغيب رمين أي رميين غيب كأي رمين هيان هدنا يحافظون وحي حفظين هيان على أداء الصلوات صلاة إلهي على أداء الصلاة صلاة معناها قدش دي أي حفظ هيان في مواقيتها وقت أداء قدش صحيحا وفق ما شرع الله به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذو ولبا وافق سن وحي إلهي أجد جل وعلا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومما كي أعطيناهم أنسين ومن المال مالك أنا يخرجون ويبحن هيان صدقة أموالهم أمواش والصدقة ذولي أي يمون بدنيا الواجبة والمستحبات مدي واجب كهي هي مدي مستحبة هي والذين كوي يؤمنون رمين هيو بما كي رمين هيو أنزل للدجي وحيدا وحين نري كتاب في القرآن كأها وحو إلهي أول كي سيهورة كجسو الشيكية سورة البقرة دادكي وناكسنا متقين كأها إيا حالة ذي أيو إلهي كغشا كينا يا جل وعلا وحان أركي دونا مركا آيادا مركا نكبحنو دادك إلهي أقود بدونه جل وعلا والذين كوي ويو يؤمنون رمين هي قوى إياها والذين كوي يؤمنون رمين هي ويو بما كي أنزل لدجي إليك أدق حقا أو قرآنك وما كينا ويرمين هي أنزل لدجي من قبلك أدق هرتاغ أو التوراة إيا إنجيل يلا بدا غير كودبا وبالآخرة آخرنا يوم كالدنبال اللي هذا هم إيو يوقنون قوى يقين هي ويان ويعملون عمل فلاهي أولئك قوى إيغا الموصوفون إلي سوسفيه بما كي ذكر الموصوفون بما ذكر على هدى بيك سغنيه ومن ربهم ربك حق وذكاء هذا وأولئك قوى إيغا أنا
hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay kuwa iyaga unbaa waxay yihiin kuwa liibaanay ulaa'ika kuwaa lasoo sheegay ee hadda laga soo sheekeeyey calaa hudan bay kusugan yihiin hanuun oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika kuwa iyaga hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay alfaa'izuuna kuwa liibaanay biljannati annaajuuna min annaari wey nimankaa iyaga dadka iyaga aweeyo kuwa nabad galay waladiina kuwii way yusadiquuna rumaynaya bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga ayuha rasuulu rasuulkana oo min alqur'aani wa bimaa kiina way rumaynayaan unzila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga oo min alxikmati xikmad ah ayay rumaynayaan wahiya xikmadda iyadaa waa sunnada rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam ee runta ah wa bimaa kiina way rumaynayaan unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa la dejiyey oo cala rusuli lagu dejiyey oo min alkutubi ah oo min kutubi sida katawraati iyo walinjiil iyo wagayrihima wayusadiquuna waxay rumaynhayaan bidaari lxayaati nolosha daarteedii oo adduunyada waa daarulmamaad oo daar lasii joogahaya ma aha daarulmaqari oo daarulaakhira ah ayay si fiican iyadana u rumaynhayaan bacda almowti geerida bacdigeeda wamaa fiiha iyada waxa fiigeeda ahaadayna way rumaynhayaan oo min alxisaabi xisaaba iyo waljazaa'i jazaa tasdiiqan biquluubihim weeyaan quluubtooday si dhab ah ooga rumaynhayaan arrinkaa isaga yadharu calaa alsinatihim iyo wajawaarixihim buu ka daahir وخص بيوم الآخر لأن الإيمان به من أعظم البواعث أيوك مديهي على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس نفط إن لحسابه إن لقد هذا محرمات قدر أولئك قوى يجا أصحاب هذه الصفات صفوين يجا أصحاب توضع هذا اللي جسوا شيكي وحيكسوا جيهن على نور ومن ربهم ربهم الحق وذكاها وبتوفيق بيكسوا جيهن من خالق وحاول توفيقنا ويكسوا جيهن hanuunna way ku sugan yihiin wanaag oo dhanna way ku sugan yihiin ulaa'ika kuwa iyagii laga soo sheekeeyey lasoo sifeeyey calaa hudan bay ku sugan yihiin oo min rabbihim rabbigood xaggooda ka ahaaday wa ulaa'ika kuwa iyaga hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah labadan aayadood ee hadda soo socota ilaahay wuxuu kaga hadlahayaa gaaladii iyo xumaantoodii buu kaga hadlahayaa sagaalka aayadood ee ka dambaysana ilaahay wuxuu kaga hadlahayaa munaafiqiintii iyo xumaantooda ayuu kaga hadlahayaa ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay sawaa'un waxaa jin ah calayhim iyaga dushooda waxaa eg aandartahum u digtayaa am lam tundirhum ooma aadan diginaaba fahum iyagu ooma aadan diginaaba laa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaahi jala wacala oo waa maxay soo kan aan aragna maalin walba intaasoo gaal ah oo soo hanuunahayo maalin walba islaamnimada soo gelayso waxaa weeye oo ilaahay uu ka hadlahayaa waa kuwa xaqa garanhayo ee sida cad ee jaxdiga ah qur-aanka u diiday weeye waa kuwa iyaga kuwan kaafiriinta ee gaalka ee kaafirnimada uu ilaahay ku tilmaamay waa kuwa iyaga ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo gaalada dhab aha waa kuwii jaxaduu diiday bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday sayidka maxamedaho istikbaaran bay u diideen kibrin iyo waduqyaanan xadgudub waxaa weeyaan lan yataca minhum aliimaan iimaan kuma dhacahayo kuwa quluubtooda sawaaءun waxaa jin a marka akhawaftahum cabsi gelisaa oo waxadartahum u digtayaa min cadaab illaahi oogu digtayaa cadaabka ilaahay am tarakta dalika ka tagtayaaba waa liisraarihim waxaa weeyaan calaa baatilihim isku mid weeyayo marnaba hanuun ma laha ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaءun waxaa jin andartahum u digtayaa am lam tundirhum ooma aadan diginaaba laa yu'minuuna ma rumaynhayaan ilaahay khatama allahu ilaahay baa ooday calaa quluubihim quluubtooda ayuu ilaahay ooday وعلى سمعهم سمعودنا إلهي وأوضي وعلى أبصارهم أرجود دوشي سنة وحوية لإلهي غشاوة بوية دبور ولهم قوة إيجا وحا أسقناضي عذاب كاسو أليم أي مؤلم قبها أي أسقناضي معنى وحويو طبع الله إلهي بات طبع هذا وحويو ورقد مركات قرطو وحويو تيم بريه كل فتو خابد ورقد وحد جلسا بشقد ساتين بركة لكاسسين تيم بري marka korku kaga yaala isku laamaysi waa diri marka qofkii ay ku socotay xafiiska ay ku socotay baad u diibi marka ilaaha qulubtooda sida iyaga ayuu yeelay macna waxa weeye tabac Allah ila khatama Allah ilaahay ba ooday wa macnaha tiim bariyay way ala qulubihim iyaga qulubtooda dushooda haula kuwa iyaga wa ala sam'ihim ilaahay wuu ooday weeyaan wa ala absaarihim aragoodana ilaahay wuxuu yeelay qadaa'un dabool buu yeelay wa bisababi kufrihim gaalnimadooda sababkeeda weey iyo wacinaadihim madax adaykooda oo min bacdi maa tabayana inta uu u caddaaday bacdigeeda lahum iyaga alxaqu xaqa uu u caddaaday oo falam yuwafiqhum lilhuda hanuunka lama waafajinhayo kuwa iyaga walahum waxaa u ahaaday kuwa iyaga ana cadaabun cadaab baa u ahaaday
عذاب كاسو شديد درن وفي النار نار في هذا هذا وفي نار جهنم نار جهنم في هذا هذا أي قوة إيجاوها وحال إلى آياتني سبب النزول كذا دتك أي كسر دتي وحال أيام بالجري نينكي لديه جري وحويان وائل إيو أبي إيو ويت خلف إيو نينكي لديه جري أبي جهل إيو أبي لهب إيو أو سفيان ومركا هركا حقيقي إيو نمانك إيجا أبي كسر دتي بالجري 6 توصل لقي أضياش الله أبو سفيان بن هاي بالي ختم الله إلهي بدودي على يا دبولي على قلوبهم قلوب طول وعلى سمعهن إلهي ودبولي وعلى أبصارهم أرق وضدوش ودنا إلهي وحويالي غشاوة دبول بويالي ولهم وحا ذلك هو إيجا عذاب كاسو أليم أي مؤلم قبها يا أسقنا ذلك ومن الناس ذلك وحا كمدا من قفبا كمدا يقول قولها يو آمنا وان رميني بالله إلهي وان رميني وباليوم الآخر ما أنا كدنبنا وان رميني وما هم منعها نكوا إيجا بمؤمنين قوى رمين هي معها وحا إليهم وان رميني أو مع إليهم إله رمين تيسئة يوم كآخرة معها قوى رمين ويديدين قوى إيجا ومن الناس تدك وحكم ذا فريق باكم ذا أو يتردد معناها ترددها يو ووحا ويان تدك وحكم ذا نمن ترددها يو أيها كم ذا فرقدر إيجا يتردد يسو وحويان ومتحيرا بين المؤمنين والكافرين قال ذي يا مؤمنين تتحدثوا أي تردد يا كجرا مسلمين ولا شقين النبي لهم قال ذي ولا شقين النبي لهم منافقين بالي هذا قوة وهم قوة المنافقون وي الذين يقولون قولها بألسنتهم عرب وذكرها وحويان صدقنا بالله إلهي بان رميني إلهي أيام رميني كولها ويا واليوم نوار رميني يوم كي الآخر إيدن بي وهم قوة يجا في باطنهم باطن كورة كاذبون قوة كبيرية وكاذبون وي قوة يجا كاذبون وي أو لم يؤمنوا بالله إلهي ما ينرمين قوة يجا عشرة نعاو هل كأسجا يقولون وجوه وصلى اللهم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين